shukri cabdiraxmaan oo muddo 10 sano ah ka tirsaneed ciidamada Mareykanka qaab qaxootiyaana ku tagtay dalkaasi ayaa doonaysa in doorashada soo socota uga guuleysato xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan Koongareeska. waxay sheegtay inay ka tirsan tahay xisbiga mucaaradka ee jamhuuriga isla markaana ay wax badan ku dhaliilsan tahay siyaasadaha ay mudnaanta siisay Ilhaan sida arrinta qaxootiga iyo xakameynta awoodaha booliska. ma hilmaami doono fursadaha uu Mareykanka i siiyey markii aan qaadanayay sharciga muwaadinimada iyo markii aan ku biiriyay ciidamada Mareykanka waxaana ku dhaartay inaan difaaci doono mana aha dhaar waqtiga uu ka dhaco ayay Shukri ku qartay barteeda Twitterka. mar ay ka jawaabaysay dad su'aal ka keenay awoodda ay u leedahay in doorashada soo socota uga guuleysato xildhibaan Ilhaan oo si weyn looga bartay Mareykanka iyo dibaddaba. waxay Shukri sheegtay inay ku dhex jirto bulshada si tartiib ah uga guuleysan doonto kalsoonida codbixiyaasha. Shukri waa hooyo haysata 3 caruur ah. waxa ay sheegtay in muddo 4 sano ah ku nooleed xeryaha qaxootiga ee Kenya kahor inta aysan qoyskeeda tagin Mareykanka waxayna ka soo dagaalantay dalkaasi Ciraaq halkaas oo ay isku barteen nin askari ah oo ay sheegtay in markii dambe uu u geeriyooday xanuuno maskaxda ah oo uu ka qaaday dagaalka. arrimaha ay sida weyn ugu ololeyso waxaa ka mid ah xakameynta qaxootiga sida sharci darrada ah ku soo gala dalka Mareykanka. xuduudaha dalkeena hadda waa kuwa furan oo qofkii rabaa uu soo geli karo mana jirto cid baarta dadka soo gala ma garan karto dhibaatada ay dadka soo galin noo geysan karaan ayay Fox News u sheegtay. Shukri oo sheegtay inay tahay qof ku dhaqanta diinta Islaamka ayaa Ilhaan ku dhaliishay inay doonayso in la dhimo awoodaha booliska Minneapolis isla markaana laga jaro lacagaha ay dawladda siiso taasoo ka dambeysay kadib markii askari ka tirsanaa booliska Minneapolis lagu helay dambi ah inuu jilibka qoorta ka saaray sidaana ku dilay nin madow ah sanadkii 2020.